Ciyaaraha furitaanka koobka maamul gobeleedyada dalka ayaa maanta lagu bilaabay Kooxaha Jubaland iyo banaadir. Faahfaahinta warkaasi waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyahayga Cabdullaahi Axmed Catoosh. Kooxaha ku kala ciyaaraya magacyada gobolka banaadir iyo Jubaland ayaa isku farasaaray maanta garoonka caalamiga ee Banaadir Stadium kulan xiiso leh kaasi oo daafuraha bilowga tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo Muqdisho maanta ka furmay. ciyaartan oo u soo daawasho tageen taageerayaal aad u fara badan oo isaga kalimid 17 degmo ee gobolka banaadir ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay xubno ka kala socda labada gole ee dawladda Soomaaliya. natiijada ciyaarta ayaa waxay ku idlaatay 3 gool iyo gool oo ay guush ku raacday kooxda ku ciyaaraysa magaca gobolka banaadir. wasiiradda dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa garoonka gudihiisa kula hadashay warbaahinta xilli uu garab taagnaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyadoo sheegtay in guul ay u tahay wasaaradda in tartankani Muqdisho ka qabsamo sanadkii labaad oo xiriir ah. dowlad goboleedka Jubaland hadda waxa lagu jiraa waqtiga dhaxtaalka ama kaambiyaha. dowladda ra'iis waxay noo tahay wasaaradda dhalinyarada ee isboortiga oo qabatay ciyaartan iyadoo kaashanaysa xiriirka kubadda cagta. dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadirna ay ka yihiin tartamayaal ayaa waxaan muddo dheer soo diyaarinay tartankan lagu wada faraxsan yahay lagu wada qanacsan yahay wadar ogolka ah mas'uuliyiinta gobolka banaadir iyo dowladda ma soconayso xeerarka gaarka ah ee hadda loo sameeyay qabashadiisa waa mid la isla wada ogol yahay wuxuuna salka ku hayaa xeerarka caalamiga. tartankan gobolka banaadir ka dhacay waa markii ugu horeysay dad badan waxay qabaan in sanadkii hore ay tartameen dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir laakiin waa kala dhantaalnaayeen. hadda ma kala dhantaalna waayo Hirshabeelle shabeellada dhexe iyo Hiiraan ay ku ciyaartay. maanta dowlad goboleedyada dalka oo dhameystiran ayaa ku ciyaaraya tartanka gobolka banaadir. waxaa tartankan weheliya xeer la'aan ayaa lagu ciyaari jiray sida xiriirkaba ay ka warqabaan iyo Olombikada qaranka. xeer loo dejiyay oo wada tashi wasaaraddu ka soo samaysay oo lagu wada qanacsan yahay raalli la iskaga wada yahay lagu qabtay oo salka ku haya xeerarka iyo shuruucda kale caalamiga ah. waxaa racfaan guddi ka ah markii ugu horeysay oo la diyaariyo intii qaran burburka nagu dhacay guddiga racfaanka ciyaartoydii hore ee qaranka Soomaaliyeed qaarkood hadda marti dalka ku yihiin qaarkoodna ay hore u joogeen. waxaa xusid mudan ciyaartoydii xanuunsanayd oo shalay la dadaaminaya ayagoo socda in ay soo galeen sida ciyaartoygii juro oo taariikh weyn ku leh isboortiga Soomaaliyeed kaliya inuu tartankan fariisto dadkii indhaha la'aa oo ku jiray taageerayaashana u ahaa ayaa shalay joogay. waxaa hadda fadhiya oo aad arki doontaa odayaasha isboortiga Soomaaliyeed oo ah guddiga racfaanka tartanka haddii Allah awood la ogolaado. dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo kamid ah daawadayaasha ciyaarta maanta oo isna warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay dareenkiisa kulankan iyo ka soo qaybgalkiisa. qayb kamid ah horumarka ummadda Soomaaliyeed ee ku talaabsatay kulligiin waxaan idin rajaynayaa guul. waa ku mahadsantihiin maalintan taariikhiga ah waa ku mahadsantihiin inaad ummadda Soomaaliyeed nolol dhab ah u soo celiseen. ciyaartoyda kulligood waxaan u rajaynayaa guul laakiin waxaan leeyahay muhiimaddu waa ciyaar wanaag iyo sharaf iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. waa mahadsantihiin insha Allah. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa markii ciyaarta ay soo idlaatay warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka isagoo oo hambaliyay iyo bogaadin u diray labada dhinac ee maanta ciyaar wanaaga ku soo bandhigay garoonka. wuxuuna fariin u diray kooxaha kale ee tartankan u haray oo bari maalmaha soo socda ciyaari doona oo si toos ah u bilowday tartanka kubadda cagta ee u dhaxeeya gobolka banaadir iyo dowlad goboleedyada oo maanta lagu furay gobolka banaadir iyo dowlad goboleedka Jubaland. waxaan runtii aad iyo aad u amaanayaa ciyaartoyda labada dhinac ee ka socotay gobolka banaadir iyo Jubaland oo runtii ciyaar wanaag akhlaaq asluub saaxiibtinimo iyo sidoo kale wax ku dayasho mudan dhammaantood laga arkay. waxaan nasiib u yeeshay markay ciyaarta bilaabaneysay inaan ciyaarta la bilowday oo aan la dhamaystay labada kaambiyo oo aan fiirsada waxaan ku arkay wax aad ii soo jiitay ayadoo banooniga la wada ciyaaraya haddana waxaa ka wada muuqatay wax la yiraahdo isdhaxgal oo runtii wax aad iyo aad u wanaagsan. marka waa amaanaya kulligood waa bogaadinaya. waxaan leeyahay hambaliya labada tiimba runtii waan u hambaliyanayaa sababtoo ah waxa ugu wanaagsan marka kubadda la dheelaayo waxa ay tahay waa ciyaar wanaag iyo sidoo kale akhlaaqda oo wanaagsan. marka labada waa u hambaliyanayaa. ciyaar wanaagsan ayay ciyaareen oo ciyaartii wanaagsan ayay ku dhamaatay. banooniga sidiisana waa cad iyo madow ugu dambeyn koox bay raacdaa guusha. laakiin waxaan leeyahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bogaadinayaa ciyaarta wanaagsan iyo sidoo kale asluubtii iyo akhlaaqda loo ciyaaray. waxaan ugu baaqaa kooxaha soo socda biri dheeli doono kuwa kale ee saadamba dheeli doono ciyaartii maanta la arko kale ciyaarta wanaagsaneed iyo dishibiliinka lagu ciyaaray
intaas sii wada waa hambalyanaya dhammaantiinna hambalyo aad baa u mahadsantihiin salamu calaykum tani waa maalintii koowaad ee mashquulka maalmaha isboortiska gobolka banaadir maadaama tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka muqdisho maanta uu ka furmay cabdulaahi axmed catoosh Somali Cable TV muqdisho